markan waxaad noo soo dirtay documentiga aan kaa codsanay waxa aan marka ku tusaynaa sida marka ugu horeysa aad gelaysid e-tawakkal sida loo galo ama se loo isticmaalo shabakadda e-tawakkal marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay user account baad u baahan tahay user account waad ku qoranayso emailka ayaan kuu soo dirnay ayaa waxa uu la socdaa laba xaraf ayaa la socdaa mid ah user accountka iyo usernamekii aad samaysatay haddaba waxaan u baahan tahay mar walbo inaad xasuusatid user accountkaasayto waa muhiim mar walbo aad tawakkal emailka aan e-tawakkal gelaysid waa lagaaga baahan yahay kaas haddaba waxaan ku tusaynaa marka sida loo isticmaalo marka ugu horeyso e-tawakkal markii aad soo geshid oo account-kaaga uu cusub yahay user accountka markii aad gelisid waxa kuu soo baxaya page cusub oo markaasayto ku weydiinaya username iyo password remember xasuuso usernameka adiga ayaa samaystay passwordkana waxaad samaysatay markii aad ugu horeysay ee aad gelaysay maaragtay markii ugu horeysay oo aad furanaysay accountka ayaad samaysatay okay meesha ugu muhiimsan marka aan doonaya inaad ogaato waa tan marka ugu horeysa aad e-tawakkal aad soo gelaysid waxaa lagu weydiinaya inaad samaysatid 4 su'aalood inaad samaysatid oo sir ku ah adiga 4taas su'aalood waa inaad ka jawaabtaa oo systemka hadhowdii markii aad gelaysid marba mid ayuu ku weydiinaya waxa uu ku weydiinayaa 4tan su'aalood samayntooda waa marka ugu horeyso aad gelaysid e-tawakkal haddaba 4taas su'aalood baan samaynaya marka ugu horeyso hobbigaaga muxuu yahay aniga haddaan iraahdo hobbigayga waxaa weeye reading haddaan iraahdo 2 goor baan qoraya ogow si aad u qortid inaad xasuusatid far waaweyn inaad ku qortid iyo far yaryar inaad ku qortid labadaba miday tahay waa inaad xasuusataa haddaad dhahdi sanadkii aan qalin jabiyey goormo weeye waa 2000 iyo haddaan iraahdo ka soo qaad 15 2000 iyo haddaan iraahdo iyo maaragtay 2020 haddaan iraahdo kale sanadkaa qalin jabisay waqtigii hore noqon kartaa taas waa inaad xasuusataa mar walba macalinka kuugu horreeyey maaragtay waa kuma macalinkayga ugu horreeyey waa Soomaali macalinka magaciisa ayaa lagu weydiinayaa moogta waxaa lagu weydiinayaa magac meeshan baa ka qoranaysa su'aalaha ka soo qaad hooyada magaceeda lagu weydiinaya ka soo qaad hooyada magaceeda hadduu yahay Maryam oo tii markii hore aan soo qornay Maryam 4 su'aalood markaa saa u jawaabtid kadib waxa aad gelaysaa submit baad oranaysaa systemka marka waxaad gelaysaa marka waa e-tawakkal marka ugu horeysa aad geshid account-kaaga waa 0 e-tawakkal ayaa hadda ku jirta account-kaaga waa 0 halkan waxaad ka ogaanaysaa account-kaaga dhaqdhaqaaqeeda lacagaha sida loo diro halkan baad ka ogaanaysaa lacagta sida loo diro mar walba waa muhiim halkan ay ka ogaanaysaa taa cajalad kale ayaan ku soo qaadanaynaa transferka halkaas ay ka ogaanaysaa maaragtay limitka ugu horeeya qofka uu leeyahay ogow limitka ugu horeeya waa 700 transferkana samayn kartid waa $1 haddii aad intaa ka badan u baahan tahay la soo xiriir shirkadda tawakkal securityga halkan ay ka bedelan kartaa passwordka haddaad u baahan tahay ama si questionska 4 su'aalood mar kale haddaad ilowdo halkaas ka bedelan kartaa e-tawakkal marka aad soo geshid waxa kale ogaanaysaa welcome buu qoranayaa magacaaga iyo usernamekaaga iyo goorta ugu dambeysay oo aad soo gashay e-tawakkal haddaba e-tawakkal marka ugu horeysa aad soo geshid sidaa ayaad u soo gelaysaa marka waxaan leenahay maaragtay isticmaal wanaagsan aad baa u mahadsan tahay sidaad inoogu qadarisay tawakkal e-tawakkal email.com